shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya isla markaana looga hadlayo tayeynta howlaha dowladaha hoose ee gobolada Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. qodoboreedkaasina waxa inoo hayay wariyaheena Nuur Siciid Tahliil. shirkan ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalk ee dowladda Soomaaliya oo ka dhacay aqalka dowladda hoose Xamar ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir Handuqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale qaar ka mid ah wasiirada ka socda dowladda goboleedyada dalka xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Yaxya Cali Baahin iyo mas'uuliyiin kale. shirka intuu socday waxa looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanaayeen sidii loo xoojin lahaa tayada iyo awoodda maamulada dowladaha hoose ee gobolada dalka iyo sidii loo soo dhisi lahaa golaha deegaanka si gudoomiyaasha gobolada ay u noqdaan kuwa la soo doorto aan la magacaabin. gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriyabo ayaa shir kadib warfidiyeenada u waramay. waxa looga hadlayay inta badanna shirkan looga hadlaa waxa la yiraahdaa horta madasha magaceeda wadajira la yiraahdaa waxaana looga hadlaa markasta maamulka dawladaha hoose iyo sidii loo baahi lahaa dawladaha hoose ay u gaari lahaayeen hanaan madax bannaan ee dadka maamulaya ay noqon lahaayeen dad la soo doortay oo ka yimid shacabka Soomaaliyeed ee degmooyinkaas iyo ilaa heer tuulo iyo heer gobol intaba inay noqdaan maamulka ka shaqeynaya dad la soo doorto oo shacabkaasu ay soo doorteen ay matalayaan marka aad iyo aad ay hadda ay meel fiican u maraydaa kulamo fara badan oo hore soo dhaco meelaha idin sheego dhan ka dhacay maantana waxa martin ugu yahay xaruntan aad arkaydiin meel aad u fiican una maraya gabagaba waxaana loogu talagalay in looga xisaabtamo ama lagu xisaabiyo waxyaalihii kala duwanaa dadka Soomaaliyeed siyaalo kala duwan ku soo gali jiray hanaankaas ama lacagahaas loogu talagala maamuladaas in lagu dhiso oo soo mari doona hal wado oo wadadaasuna ay tahay wasaaradda arrimaha gudaha kadibna wasaaradda arrimaha gudaha ay gaarsiin doonto sidii loogu talagalay madaxda halkan fadhida oo iyaduna wakiilka ah dawlad goboleedyadii marka shirka macnihiisa iyo nuxurkiisa intaas u ahaa. shirkan oo socon doona muddo 3 maalin ah ayaa la filayaa markuu soo gabagaboobay inay ka soo baxaan go'aano ku aadan tayeynta maamulada dowladaha hoose ee gobolada dalka. Nuur Siciid Tahliil, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.